ku soo booqday gabdhihii Soomaaliyeed oo jaanisku u helay inay ka soo qayb galaan shirweynaha nabadaynta iyo dib u dhiska Soomaaliya ee magaalada Eldoret. marka hore waxaan ku soo gudbinaynaa salaan, marka kale waxaan ku sheegaynaa annaga maanta waxaan sameynay mudaharaad nabadeed. waxaan ku sameynay hoteelka weyn oo shirarka ay ka dhacaan. waxaan soo aragnay mas'uuliyiintii Soomaaliyeed ee shirkan uu quseeyo oo dhan. waxaan u jeedinay inaan rabno nabad. waxaan u jeedinay inaan rabno dawlad cadaalad iyo sinaan leh. waxaan u jeedinay inaan rabno hubka dhigis loo siman yahay. way naga ogolaadeen waana nagu gacan qaadeen. sidoo kale bacdama aad tahay oday Soomaaliyeed ahna oday daci oo xusuus dheer ku leh ummadda Soomaaliyeed. Soomaali waxay qarka u saaran tahay burbur, waxay qarka u saaran tahay xirka kala jiidasho. waxaan nagu dagaalamay dowl aan anaga aqoonin inaad oday noqotid, dadku isu soo celisid, nabad doonaysid, kaalin daaban ay kugu qoraan haweenka Soomaaliyeed. intaasaan kugu soconaa taariikhda adduunka inaad geshid oo Soomaali aad isu soo duntid oo aad u waayeelaysid oo aad isu keentid. intaasaan kugu soconaa. wixii akhbaari dhamaystirinteedan waxaan ku soo dhawaynaa walaashay Xaawo Cosoble. baad u salaaman tahay. waxaan kuu soo gudbinayaa salaan aad u qiimo badan anoo ku hadlayo codka gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta ku sugan Eldoret iyo meel kasta ay jiraan. salaan kadib walaashay baa ku dhameysay qaradka iyo meesha aan u nimid. annaga haddaan haweenkii Soomaaliyeed nahay waxaan aad iyo aad u codsanaynaa oo u baahannahay nabad iyo dawlad loo wada dhan yahay oo cadaalad ku sugan. bacdama adiga aad tahay waxaan muran ka taagnay inaad adigu tahay nin Soomaaliyeed oo aad iyo aad u qiimo badan dalkana qiimo ku leh. marka waxaan kaa rabnaa codsigeedu uu yahay in aad adiga shirka hogaamiso oo aad gabadh ka soo qorso oo aad ummadda mataqaana isu keento oo tanaasulaad la sameeyo. annaga dalkii aad u nabad karma leh 12 sannadood waa intay Soomaaliya dhibaatada ay soo martay lagaaga sheekeyn maayo. marka waxaan kaa codsanaynaa annagoo walaalaha ah, annagoo xaasadkiinii ah, annagoo mataqaanaa gabdhihiinii ah in aad Soomaaliyeed oo walaalaha ah gabadhay kuu sheegtay in aad gaaljaha ka qaadato oo ayaa qasrigaaga u joognaa kuuna nimid hoostaada u joognaa inaad nagu qadiriso nagu qiimayso. hooyooyinkii baan nahay habaar waa idinku barnaa duco waa idinku barnaa inaad kaga qaadato oo noo qaado inaad ku jiidaysano oo aan ku faraxno aad noo sheegto aan la laabano. haatan idinkaa sheegay odayaal baan nahay oo fadhi maan isaga hadlaynaa Soomaa. horta waxaa meesha galabta fadhiya haweenka da' laguma sheego, looma sheego da' 25 ma dhaafaan. carruurtooda markay 30 jirto 25 bay jiraan horta. laakiin dadaan garanayo oo waa hore isnaqiin oo magaciisa baa idinku jira mase jiraan da'weyna haatan waa yaryaryihiin. maymuun culus waa ka mid ah. Xaawo Maxamed Cosoble gabdhahaasi anigoo xidigla ah oo wiil yar oo magaciisa fadhiya anigu waagaas qof aan qiimo ugu marko gabdhaha ma beentay ba haddii waagaas kadib baa dhalateen horta aan idin camire waagaas kadib baa dhalateen horta. intaas kaftan weeye. inta labaad waan noo timaadeen oo anaa ila hadasheen haatan rag kale odayaal oo mas'uuliyiina oo reer Puntland baa halka fadhiya aan iskiin baro. idinku waa hadasheen gabarina ma oranay bileen. حاول قرنا يا حاول محل عصول وعفان أبيه إذا نكين قبل ولاله إذا نكين عيسى نكين كوري محمد عصول العدوية أثينك قبل وقبل حاول قرنا يا إذا حير قاسم يسكت سجلين برتاع السماء يا
ninkan koofiyadda gashan madaxweyne ku-xigeenka Puntland weeye محمد عبد حاشي باليا ما شاء الله يا سلام دمبي من قليا أنا ياش سكين برين هوك من كان يوسف عثمان سمطر بردعت باليا ما شاء الله لما كان على عستاء اسمي يقول أورنجي بللاها قبله ذي وي لكن مركز لما عاتن سكدة كامل حبس كدركو سقالي يتوصل أبو الغي سواء محمد سياد يا isagaa iga badan anigu inta kale 12 sano aan leh idinku banaanka iska joogteen oo iska fiicnayo iska camiranaysan oo gacankiina la socoteen aan isku miisma hadee horta goorma garateen in bala dhici doonto waagi wixii socday baa iska dhex joogteen oo u qabteen nabadi jirto goorma ogaateen in bala dhici doonto haddaan labada oday iskiin barin raggan kale waa rag dhalinyaro ah kulligooda ku daalin mayee laakiin odayaal badan oo reer Puntland oo jooga deeqa culjo deeqa raalaha iyaga la yaqaanay marwalba saasan nooga tagay professor deeqa culjo baa leeyahay wasiir bay ahayd magaciisi bay ahayd deputaati bay ahayd waxa la wixii dad noqday ahayd يا هاتنا وفتيجا Puntland نبدأ يميد وكل يلابسي نبدأ يميد طيب واحد كتاي من ميلوي بين الموج حتى إن بدير لما قعابي الموج تاي يا محل الغرفة يغان بالأفراد السانين يدوركوا دون عنه قفا وحبا أقواني هدو بحكو كيني يا marka intaas waa isbarashin midda kale waxaan idin ka mahad celinaynaa annagu rag iyaga halka degan iyo gabdhaha halka degan deeqa gurigan wada deganna waxaanu kana deegaanka la yiraahdo Puntland marka halka la joogo Soomaaliya Puntland baa ugu fiican Soomaaliya أنا يمين بالجريس يمين بالجريس ذلك ما تقانين هو دينا على قبل الله دحين أفقاهنا يوقال كعيان شو دينا على الله ما بدو ماشي سجودي ماذا يا كان شو لما بدو ماشي سجودي ماذا يقال كعيان يكون يشم بقول كيلومتر بيسوسنا بدأ سنوات الراب بدأ سنوات الراب دلوي نواهي سلا دور بدنا وانا هاي دولة وانا نودي سنتا يا أنا وجمال ماهي فاكشن كسيوسي ماهي بلا النظام ماهي قبيعيسي ماهي أنا وأفر سنة وقتي اللي جتشو مركان صومالي كبو سماي وحنا بسمي قبل كانوا قولين وشن قبل كانوا مركان قول يعني أنا دولة قولين أنا وصومالي كبو كرم ميل مآلي كرم كلمة ولا لهين أنت يار قروبة يا بل عد كان يرو أكل كتشوفنا أنا ما بسلو أنا مضامين أو أنا بتكشبك قادم أو أنا الرمي كل صون وغين أو أنا شعب في عشورتي وإلا وعشورتي كسر عليه لو أنا بليس وسمين أنا بدليك السوين نقيش سومالي بسوين يا الله سومالي بسوين أنا واجا أمسايا اللي ومركي القاهرة اللي وصفشنا أنا القاهرة رجع كقبلة وحنا عقلي قريب بنا لو كنا أنا ونكي سود مية أنا القاهرة هرت تاريخ هذا مية أنا وكي يا تانك عليه مركي نفتي نقطة واجي كعنكي محمد سياد الرماح كا واللي حسنا إلى دنبي أنا وحبس الله هيدي بان نسقط من آدم أنا وخص 11 واحد مليون لا يسوى عمري بس والله ذي كبقي يعني وحاتين يا الله ويالك عندي إياه حبينا ما هو أنا وصو صاري وأنا وعيد ما يقدر سلم يناش الدين باتيني من نفياتها تقالي من الأسبيع
ماشي سان وجوغني دagaal baan loo dhisay waa soo dagaalnay waa guulaysanay siyaasadii waa lagu fashalay kadib waa uga tagnay waxa si aad radal meeshii yadii naga dabayn ninkaan naga hari waayay ninkaas ka dhicinaayo ciidan hub qaata oo ciidan shacab ah maxamed siyaad bare dawladdiisa ka hor yimaada